maalmihii la soo dhaafay waxaa degmada Afmadow si habsami leh uga soconayay ballaarinta iyo dayactirka wadooyinka muhiimka ah ee magaalada kuwaas oo isku xidha xaafadaha kala duwan. Hawshan ayaa ah mid ay si wadajir ah uga shaqeeyeen maamulka degmada iyo bulshada, taasoo muujinaysa isku duubnaanta maamulka iyo bulshada Afmadow oo ay ku doonayaan inay ku horumariyaan wadooyinka. Gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Mudane Cabdiraxmaan Macalin Cali oo ay weheliyaan agaasimaha maaliyadda degmada Najiib Axmed Yoos iyo xogayaha dowladda hoose Maxamed Xalane Bashiir ayaa maanta si rasmi ah u kormeeray isla markaasina u bilaabay dayactir lagu sameynayo wadada hormarta xarunta shirkadda Hormuud ee magaalada. Wadadan oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo isku xirka bulshada magaalada ayaa horey u ahayd mid burbursan, taasoo caqabad ku ahayd isu socodka iyo adeegyada muhiimka u ah bulshada. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada ay mas'uuliyiinta degmada ugu jiraan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo bilicda magaalada. Gudoomiye Cabdiraxmaan Macalin Cali ayaa sidoo kale baaq u diray qurbad joogta reer Afmadow isagoo ku booriyay inay door muuqda ka qaataan dib u dhiska iyo horumarinta degmada. Ugu dambeyn, gudoomiyaha ayaa tilmaamay in iskaashiga bulshada gudaha iyo qurbad joogta uu furo u yahay mustaqbalka degmada iyo sidii ay uga mid noqon lahayd magaalooyinka ugu horumarsan deegaanada Jubbaland. كل وقرنا ربوا الله وحده ربوا وقريها كل سوق العيسى وعشان تأ كل وانتمينا وهذا كل وانتمينا رياس مركا ما أنت شغال صاب اللوني وترك سمايا كل حتى هذا الله بينا عينيش يا ولا لياو ذلك أصول له أو كان لسه أو مين كان لسه تلك الذين طاف السنين وانتمينا